بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأعزائي الكرام، sidee nafta looga dhowraa kelimadaha laabta waxyeela marka aad maqlayso hadallo aad dhibsanayso oo qalbigaaga waxyeelaya asxaabtaada ama ehelkaaga ama bulshada aad ku dhex nooshahay aad ka maqlaysid waxaa qalbigaaga ku dhacaya xanuun fikirkaagii ayaa isbedelaya. maxaa sidaa lagu leeyahay? maxaan galabsaday? gaar ahaan waxaa lagaa sheegayo haddii aadan waxba ka ogayn. haddii addoonka xaaladda hadallada uu dhibsanaya lagu yidhaahdo iska aamuso oo waxba sheegin cidna la diriirin, taa waxaa lagu magacaabaa dulqaad iyo cafwi. laakiin su'aashu waxay tahay, sideen xanuunkaasi uga fogaadaa? taasina waxaa ka sii muhiimsan, sideen qalbigayga u xifdiyaa oo aan uga dhigi karaa qalbi nadiif ah oo aan saamayn ku yeelanayn hadal walboo laygu yidhaahdo, kiisa xun iyo kiisa fiican ay ammaanta iyo caydaba agtayda isku mid ka noqdaan. waxaan arkay qur-aanka kariimka oo arrintaa ku soo koobaya 3 aayadood. aayadda ugu horraysa waxay ku jirtaa suuratulxijri. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. waxaa la hadlayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaannu ognahay in nebiga sala allahu calayhi wasalam dacwadan darteed dhib badan inuu u soo maray. waxaa lagu soo tilmaamay inuu majnuun yahay, inuu saaxir yahay. ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun faqaala aldaalimuuna in tattabicuuna ilaa rajulan masxuura anu'minu laka waattabacaka alardaluun asaatiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila. waa la xaqiray xaqiraad qof la xaqiro meesha ugu dambaysay. idan qofka insaanka waxa adkaanaysaa inuu xaaladdii marka uu ku sugnaa uu istimraaryo ku sameeyo, waayo fikirkiiya isbedelaya, qalbigiibaa isbedelaya, laabta ee ciriiriyoomaysa. idan waxaa adkaanaysaa in qofka hadafkii uu lahaa uu gaaro ama bulshadii marka la dhaqmaba. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa, walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. waynu ognahay inay laabtaadu ciriiriyoomayso waxay kaa sheegayaan darteed hadallada xunxun lagugu odhanayo. waanu ognahay ee waxaad samaysaa, fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin. ku tasbiixso mahadda rabbiga kana mid noqo kuwa allah subxaanahu wa tacaala u sujuuda. idan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala tilmaamayaa in nebiga sala allahu calayh wasalam mar walboo lagu yidhaahdo hadal xun ama uu dhibsanaayo ama lagu jeesjeeso inuu rabbi subxaanahu wa tacaala mahaddiisa ku tasbiixsado kana mid noqdo kuwa sujuudaya. sidoo kale rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayad ku jirta suuradda qaaf, fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla alguruub. u samir waxaa lagugu odhanayo hadallaad dhibsanaysa ah, rabbigaa mahaddiina ku tasbiixso inta aysan qoraxda soo bixin iyo inta aysan qoraxda dhicin. waxay culimmadu tilmaamaan labada waqti inay tahay waqtiyada ugu wanaagsan ee rabbi subxaanahu wa tacaala la xuso, salaadda subax dabadeed ilaa qoraxday ka soo baxdo iyo salaadda casir ilaa maqribka laga gaaro. waa laba waqti waxay yidhaahdaan ay wanaagsan tahay qofka mu'minkaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala xuso oo ajarkiisuna aad u farabadan yahay. sidoo kale rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadda 3aad uu ku leeyahay ee ku jirta suuradda taaha, fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha wa min aanaa'i alleyli fasabbix wa atraafa annahaari lacallaka tarda. rabbi subxaanahu wa tacaala aayadan wuxuu ku tilmaamayaa inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu samro marka lagu yidhaahdo hadal uu dhibsanaayo. idan waxaan u baahannahay inaanu fahno 3dan aayadood micnaha ay wadaan iyo sababtay u soo aroorayso mar walbo la yidhahdo bima yaquuluuna fasabbix, fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix, qad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluuna fasabbix. markaynu eegno qowlka allah subxaanahu wa tacaala yaquuluuna waxaa ku xiga fasabbix. walqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluuna fasabbix. alfaa waxay yidhahdeen culimmada faa tacqiib, waa degdeg marka lagugu yidhaahdo hadal aad dhibsanayso ama laabtaada la ciriiriyoomayso isla wakhtiga aad joogto fasabbix bixamdi rabbik. idan waxaad u malaysaa in la leeyahay tasbiixa waa gaashaan aad kaga gaashaamanayso hadallada xunxun ama wixii qalbigoo dhan dhaawacaya. idan qalbiga inuu nadiif ahaadaa waa muhiim. qofka insaanka qalbigiisa inuu nadiif ahaadaa oo mar walba xasilooni qalbigiisa ku jirta waa muhiim. aayaddu markaa ma tilmaamaysa keliya inuu wiqaayo yahay tasbiixa, ee waxay tilmaamaysaa inuu qalbiga ku dhalinayo sidoo kale raalli ahaansho iyo maxay istiqraar. alla subxaanahu wa tacala aayadda ugu dambaysa muxuu ku yidhi, fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla guruubiha wa min aanaa'i alleyli fasabbix wa atraafa annahaari lacallaka tarda. idan waxay naftu gaaraysaa raalli ahaansho mar walbo tasbiixa rabbi subxaanahu wa tacaala aad qabsato markaad maqasho hadal xunxun. waxaanu isu dardaarmaynaa
إننا نمر بالتصبيح رب سبحانه وتعالى عن كدقنا مد عربكينا دائما ما جرت عيدا لعاينين ما جرت عيدا لو أورنين هذا الوقت بسنايو سيدو كلام ما جرت عيدا دونيدا مركينين لكن waxa loo baahan yahay inaanu sameysano wiqaaya ma gaashaan aan kaga gaashaamano amraad alqulub inaan gaashaan ka sameysano saadaradeed baa rabbi subhanahu wa ta'ala nabiga kulaha walqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin idan tasbiiha waxaanu leenahay wuxuu wiqaaya gaashaan u yahay qalbiga jamii al-amraad an-nafsiyya dawa ayuu yahay tasbiiha sidoo kale tasbiixa uu kamid yahay munjiyaadka waxyaabaha lagu badbaado qofka markuu ku dhaco dhibaato haddii uu markaa tasbiixa qabsado Allah subhanahu wa ta'ala uu badbaadiya tusaale waxa inaga filan nabiyullaahi Yunus alayhi salaam marka uu galay xoodka calooshiisii wuxuu yiri laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun hadduusan ka mid ahaan lahayn kuwa tasbiixsada xoodka calooshiisa ayuu ku sugnaan lahaa ilaa maalinta qiyaamo ilaa ummadda la soo saaro yowmal bactiga la gaaro idan ikhwaani waxaan isu dardaarmaynaa inaanu tasbiixa ka dhiganno hadalka ugu badan ee carabkeennu soo maro waxaan ilaah ka rajaynaynaa inuu quluubteeda xifdiyo وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا